dowladda Jabuuti ayaa si kulul uga hadashay hadal dhawaan ka soo yeeray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka jeediyey magaalada Asmara ee caasimadda dalka Eritrea kaasi oo ahaa in Asmara laga qaado cunaqabataynta hubka ay saadhay qaramada midoobay 2009. qoraalka ay soo saadhay dowladda Jabuuti waxaa ku xusnaa in Jabuuti ay aad uga naxday hadalkii madaxweyne Farmaajo uu ka jeediyey magaalada Asmara intii uu ku guda jiray safarkii uu ku tagay dalka Eritrea isagoo qaramada midoobay ugu baaqay inay qaadaan cunaqabataynta la saaray Eritrea tan iyo sanadkii 2009 kadib markii ay xasilooni darro ka abuurtay dowladaha deriska la ah gaar ahaan taageerada ay siiso kooxda Al-Shabaab iyo muranka dhuleed ee kala dhaxeeya dowladda Jabuuti sida war-saxaafadeedka lagu yiri. qodobadii kale ee ku xusnaa qoraal saxaafadeedkan waxaa ka mid ahaa waxaa aad u wanaagsanayd in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu warkiisa ku xuso dhibaatada ka taagan xuduudda Jabuuti ay la wadaagto dalka Eritrea kuna booriyo Eritrea in wadahadal nabadeed lagu xaliyo murankaasi ayaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay safaaradda Jabuuti ee magaalada Muqdisho. Jabuuti dhibaato weyn ayaa soo gaadhay waxa ay ku weysay wiilal iyo gabdho geesiyaal dagaal ay la gashay dowladda Eritrea wilina murankaasi waa uu ka jiraa xuduudda labada dal uma dulqaadan doono wadahadalo naxariis darra iyadoo wiilasheedna iyo gabdhaheennu ay wili Soomaaliya u joogaan inay difaacaan nabadda iyo xasiloonida. sidoo kale dowladda Jabuuti waxay sheegtay in wili dowladda Eritrea ay gacanta ku hayso dhul ay leedahay dowladda aan walaalaha nahay ee Jabuuti balse xilligan uusan jirin wax war ah oo ku saabsan in cunaqabataynta hubka ee saaran Eritrea laga qaado iyadoo weli aan wax xal ah laga gaarin muranka Eritrea iyo Jabuuti ka dhaxeeya. dhanka kale safiirka dowladda Jabuuti u fadhiya Soomaaliya Ambassador Aadan Xasan Aadan ayaa maanta ka dhoofay garoonka Aadan Cadde inkastoo aan si rasmi ah loo sheegin sababta iyo inay la xiriirto walaaca ay dowladda Jabuuti ka qabto safarkii madaxweynaha Jamhuuriyadda uu ku tagay magaalada Asmara ee dalka Eritrea. wixii ka dambeeyey markii ay burburtay dowladdii dhexe ee dalka Soomaaliya waxay dowladda Jabuuti ay u bilowday sidii ay u gacansiin lahayd shacabka Soomaaliyeed. sanadkii 2000 waxaa dalka Jabuuti lagu qabtay shirkii ugu horeeyay ee Soomaaliya lagu soo dhisayo dowlad ku meel gaar ah waxaana xigay shirkii 2009 lagu soo doortay madaxweynihii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed isla markaana lagu mideeyay isbahaysigii dib u xiraynta iyo dowladdii TFG-da ahayd. waxay Soomaaliya u soo dirtay dowladda Jabuuti ciidamadii ugu badnaa iyadoo madaxweynaha dalka Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle uu Soomaaliya garab istaagay waqti uu dalkan u baahnaa caawinaad degdeg ah. si kastaba ha ahaatee lama yaqaano waxa uu dhalin karo walaaca dowladda Jabuuti ay ka qabto safarka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku tagay dalka Eritrea. Cumar Maxamed Somane, Universal TV, Muqdisho.